السلام عليكم. waxaan isloogna qisooyinka Nabi Muuse wax ka mid ah sidii qisadii Usha iyo qisadii markuu Ilaahay la hadlay seen hore soo sheegnay nabi kasta waxa uu lahaa qiso ama mucjiso iyo wax u gaara waxaana ballanteenu ahayd inaan wax ka mid ah mid kasta ay iska dul taagno inagoo aan ballanteeni dhaafay kallama Allah Muuse takliima Ilaahay Nabi Muuse si toos ah ayaa uu la hadlay waa nabigii Fircoonkii Ilaahay sheegtay loo soo diray Fircoonkii lahaa ana rabbukum al-a'la ana rabbigii sareeyay waa nabigii ku cararaday ee uu teegay waxaad qiyaasan kartaan in Ilaahay sheeganaya oo qoodiye maamul leh oo aad ku tiraahdo Ilaahay ka baq inta hor timaado adigoo miskiin ah waa arrin hawsheeda iyo adkaanteedii samirkeeda leh ogow Nabi Muuse waxa uu ku soo koray gurigii Fircoon gabadha Fircoon waxa ahayd gabadh muslimada markii dambe ay aragtay nabigan yar ee ay soo koriyeen Ilaahay Nabi Muuse waxa uu ku yiri maxaa ku jira Nabi Muuse gacantaada بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى نبي موسى عليه السلام waxa uu tiri waxyaabo badan oo ay u qabato sida inuu arag ugu bulshado inuu bacadka isaga dhigo iyo inuu ku cabo inta kadib Ilaahay waxa uu ku yiri Nabi Muuse u tag Fircoon isagu waa xad gudbay wuu u tagay xaqana waa uu cadeeyay dhib badan kadib maalin baa waxa la sugu yeeray saaxiriintii uu Fircoon u talin jiray waxaan la yiri soo qaata hubkiina iyo sixirkiina Muuse waxa la yiri soo qaado adna waxaaga dadna Ushii Muuse ayaa ka badisay wixii oo dhan oo cuntay saaxiriintii badankeedina markii ay Muuse raacin Ilaahayna ay u noqdeen dadna Fircoon waxa uu yiri Muuse ayaad iga raacaysaan waan dilayn doonaa lugaha iyo gacmaha ayaan si isdhaaf idin geyn doonaa saaxiriintana kama baqin waxay ku dhaheen ku soco waxa doontid samee natoojargare nalay anagu xaqa ka leexan mayno Fircoon waxa lagu yiri waxa ku dili doonaa nimankan aad u taliso mid kamid ah oo dhalan doona dadna waxa uu sameeyay sanad walayn doonaa wiil ciyaalka sanadna way deyn doonaa waliba inamada Nabi Muuse waxa ku beegmay sanadkii la leynayay dadna hooyada waxay sameysay waxa ku riday sanduuq waxaanay raacisay badda isla markiiba waxa heshay gabadhii Fircoon waxaanay tiri waan korsanayaa Fircoon waxay ku tiri inoo daa inaan baynu ka dhiganaynaa inta kadib inankii yar waxa loo doonay gabadh shaqsiisa gabadh kasta oo loo keenay waa u diiday naaskeeda waxa uu timi Nabi Muuse walaashii waxaanay tiri maydinkeena gabadh ana ciyaal kuma diidin hadda uga waa hooyadii waana loo keenay sidii bay ay ugu shaqsiisay ana ugu shaqeyn jirtay saasaan ku badbaaday Nabi Muuse daaqoodka weynaa Fircoon gabadhii Fircoon markii dambe Muuse way rumaysay waana raacday jidii qaar badan oo kaleeba haddaba xaqa meel fog lagama eego in cid kale keenayso lagama eego ee marba ka soo bixi kara gondahaaga iyo garbahaaga wassalaamu calaykum